بسم الله الرحمن الرحيم. kusoo dhawaada casharkii shanaad ee barashada luqadda Iswiidhishka. Casharkan waxaan ku qaadan doonaa wax loo yaqaano Soomaaligan ugu tarjumay qalabka cayimida oo lagu cayimo ereyada loo isticmaalo. Dhinacan Iswiidhishka luqadda Iswiidhishku waxa weeyaan ereyada gaar ahaan waliba kuwa magacyada ah. Magacyada kaliya waxay qaataan qaarkood n, qaarkana waxay qaataan et bay qaataan. marka waxay la mid tahay haddii aan English oo kale ku tarjumo waxa weeyaan waa a oo kale, a pen oo kale iyo an oo kale marka la isticmaalo kala duwan. waxa weeyaan carabigana waxaan la yiraahdaa macrifa iyo nakira la yiraahdo, wax cayiman iyo waxaan cayimnayn ayay sheegaysaa. marka qaar ka mid ah magacyada ama intooda kulli magacyada Iswiidhishka oo dhan qaar ba waxay qaataan n bay qaataan, qaarna waxay qaataan et bay qaataan. haddaba habka iyo qaabka ay u qaataan iyo sharax dheeraad waxaan ku qaadan doonaa waxyaaban soo socda. halkan waxaan arkaynaa in uu jiro laba shay uu jiro luqadda Iswiidhishka qaar ahaan magacyada waxa loo yaqaano ubestemd wax la yiraahdo oo waxaanan sugnayn, waxaanan cadayn ama waxaanan cayimnayn weeyaan. sida waxaa ka mid ah n hund oo kale, waxa weyn n halkan oo kale waxay noqonaysaa hal bay noqonaysaa, hundna waa hal ay weeyaan. ay kasta ha noqdo, ay magaalada kala jooga, ay meeshaas ku nool, yani waxa weyn ay xadidan oo magac loo yaqaana ama sifo lagu yaqaana maaha, laakiin waa ay un sheeko lagu soo qaato aan cayinayn. halkan kale waxaan arkaynaa waxa la yiraahdaa bestemd wax la yiraahdo, wax sugan, wax cad weeyaan, waa wax xadidan oo la yaqaano weeyaan. Soomaaliga waxaan ku nidhaa eygii baan ku nidhahnaa, eygii la garanayay ee halkaas joogay saas iyo saas sifooyinkaas lahaa. halkan ereygii wuu isbedelay. marka hore wuxuu ahaa n hund buu ahaa oo n kan wuxuu ka horeeyay markaa eygu ka horeeyay, laakiin halkan waxaan arkaynaa nt inay meesha dambe ka martay ereygii hund ahaa oo wuxuu noqday hundan buu noqday. marka kani hundan waxa weyn waa eygii weeyaan, halka n hund uu yahay ayun ay. sidaas oo kale markaa ereyadu u qaataan n hadday hore ka qaataan waxaad arkaysaa eygaas inuu yahay ay aan cayimnayn, magacaas uu yahay magaca aynan cayimnayn oo kale. hadduu kadaal ka qaatana waxaad arkaysaa magacaas inuu yahay magac cayiman oo magac la garanayo uu yahay. tusaale haddaan halkan soo qaadano oo kale, halkan waxaan ku arkaynaa n hund ay weeyaan, n biil hal baabuur ama baabuur oo kale, n stool hal kursi, n door kursi weeyaan, n mama hooyo, n papa aabo, n son waa wiil weeyaan, n daughterna waxa weeyaan waa gabadh weeyaan. marka ereyadan oo dhan kulli waa khasab weeyaan, magacyo weeyaan, kulligood waa khasab inuu ka hormaro n uu ka hormaro oo tilmaamaya marka in magacyadan oo dhan ay yihiin magacyo aanan xadidnayn. hooyo kastuun baa la tilmaami karaa, hooyo halkaa joogta oonan magaceeda la garanayn oo maxaa la yidhaha aabba halkaa jooga, kursi meel iska yaalla ama aanan la garanayn exactly maaragta wuxuu yahay. marka entu hadday ka hormarto magaca waxay tilmaamaysaa cayimnalaad, waxaanan cayinayn ayay tilmaamaysaa iyo waxaanan xadidnayn bay tilmaamaysaa. haddaba ereyadoo dhan mushkiladdu waxay tahay ma wada qaataan n, ma wada qaataan. يعني magac walba oo luqadda Iswiidhishku in ma qaato. qaar waxaa jirta qaata et, waxa weeyaan sida hoos oo kale, gurigu et buu qaataa. yani waxa weeyaan ma jirto maxaa la yiraahdaa qaacidad matalan sida Englishka oo kale haddii magacu vowel ku bilaabmo oo kale waxaa ka hormaraya an baa ka hormaraya, hadduu consonant wax la yiraahdo ku bilaabmana waxa weeyaan ay baa ka hormaraysa. meeshan ma jirto, laakiin waxaa la ogyahay hoos markaad xafidaysid waxaad garanaysaa inuu et yahay, halka markaad ay oo kale aad markiiba automatically u garanaysid inuu n yahay. et fenster waa daaqada, et baa ka hormara. barn waa caruur canug oo kale, waxaa et baa ka hormarta. yob waa shaqada weeyaan, et baa ka hormarta. tog waxa weeyaan waa tareenka, et baa ka hormarta. marka waxa weeyaan sideen u kala xafidi karnaa? waxa weeyaan ma jirto wax qaacidada oo tilmaamaysa ereygee qaadanaya ama magacee qaadanaya n iyo magacee qaadanaya et, ma jirto luqadda Iswiidhishka. laakiin waxa weeyaan waxaa la yiraahdaa 80% ereyada ama magacyada luqadda Iswiidhishku waxay qaataan n, halka 20% magacyada luqadda Iswiidhishku. magacyada markaan sheegaya maaha Axmed iyo Saciid iyo Jaamac, laakiin waa magacyada ashyaada weeyaan, waa baabuur, waa guri, waa dhagax, waa hooyo, yani magacyada weeyaan ashyaada maaragtay ama ashkhaasta maaragtay, laakiin magacyadan maaha matalan Axmed iyo Saciid iyo kuwaas oo kale.
marka 80 boqolkiiba waxaan idhi n bay qaataan, boqolkiiba 20 et bay qaataan. sidaa daraadeed waxaa markaa fudud inaan xafidno kuwa etka aan xafidno oo nidhan okay waan garanayaa whose markaa et bay la timaadaa, tog waxa weeyaan et bay la timaadaa. markaad xafidid boqolkiiba 20kaas cala alaqal 80ka kale waxaad ogaanaysaa marka inay n ku yimaadaan. mid kale oo qaacido kale oo kugu fududaynaysa inaad kala garatid kuwa n ah iyo kuwa et ah waxa weeyaan ereyada tilmaamaya qoyska maaragtay sida papa, mama, son, sister, brother, family, muster, faster, kulli waxay ku wada yimaadaan n bay qaataan marka laga reebo har erey keliya oo ah barn, ereyga barn ah oo ah yani canug ama caruur ah, kaas wuxuu qaataa et buu qaataa. marka papa oo aabihii ah, mama oo hooyadii ah, son oo wiilkii ah, sister oo walaashii ah, brother oo ah waxa weeyaan walaalkii ah, family familiga ah, muster habaryartii, faster waxa weeyaan eedadii, waxa weeyaan iyo ereyo kale badan oo familiga ku saabsan waxa weeyaan waxay qaataan n bay qaataan marka laga reebo barn marka laga reebo. etna waxa weeyaan ereyo kale oo boqolkiiba 20ka kasoo haray ayay qaataan. marka waxaan arkaynaa bal halkan systemka ay u dhisan yihiin n e et markay magaca ka hormarto iyo markay magaca gadaal ka marto. halkan waxaan arkaynaa n biil baan arkaynaa, waxaan soomaali haddaan ugu tarjunno waxay noqonaysaa hal gaari oo kale ama gaari un bay noqonaysaa, gaari meel yaala oonad garanayn exactly gaarigaas macasaanba ama madowba, gaariguna aad sheeko kusoo qaadatay. laakiin halkan waxaan arkaynaa biilan buu noqday gaari. hadda waxaa dhacday enti baa gadaal soo martay ereygii, biilan wuxuu noqday gaariga. waa wax la yaqaano, gaari la yaqaano weeyaan oo la yaqaano midabkiisa, meeshuu yaala la yaqaano ama sheeko ay kugu soo martay. sidaa daraadeed waxaad oranaysaa biilan baad noqonaysaa gaariga ama gaarigu. halkan waxaan arkaynaa n stool baan arkaynaa, waxa weeyaan waa hal kursi ama waa kursi weeyaan, waa kursi aan la aqoonin oon xadidnayn weeyaan. stoolan baan arkaynaa, ntii gadaal bay kasoo martay, kursiga ama kursigii buu noqonayaa, kursi la yaqaano oo cayiman oo maxaa la yidhaha. et tog halkan waa hal tareen, waa tareen weeyaan. toget waxa weeyaan waa tareenka ama tareenkii bay noqonaysaa oo wax macrifay ayay noqonaysaa. et hus hal guri weeyaan, guri. huset waxa weeyaan waa guriga weeyaan. halkan markaa waxaan arkaynaa in luqadda swedishku haddii soo koobo wixii aan qaadanay, in luqadda swedishku magacyada ashyaadu ay marmarna qaadato n qaadato, qaarkood ay qaataan n, qaarkoodna ay et qaataan. waxa weeyaan haddii markaa entu ay ka hormarto magaca waxa weeyaan waxaanan cayinayn weeyaan. biil baad leedahay, waa gaari baad leedahay. markuu gadaal ka mara entuna waxay noqonaysaa wax cayiman oo la yaqaano way noqonaysaa. sidaas oo kale etkuna markay ka hormarto ereyga waxaanan cayinayn, markay gadaal ka marto waxa weeyaan wax cayiman bay noqonaysaa. qaacidaa jirta oo odhanaysa boqolkiiba 80 magacyada luqada swedishku waxay qaataan n, halka boqolkiiba 20 ay qaataan et ay qaataan. waxa weeyaan taas waxay ahayd casharkeena maanta oo ku saabsanaa n iyo et oo ah qaab loo isticmaalo in lagu cayimo ereyga magaca ama lagu xadido ayuu ahaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.